maantay dawlad baa la dhisaya maalin walbana dawlad inta la dhisay in hadana meel dhaxal ku farfaraysa dannooma ahan danteenu waxa weeye in laga fiirsado in laga farabuuxsado baarlamaanka madaxweynaha goboleed dhismahayo madaxweyne federaal dhismahayo dawlad nin lacag lehna dhismahayo waxa dhisahaya odayaasha dhaqanka iyo ergada ay ka keenaan beelahooda oo 101 qof waxaan lahayaa ergada 101da iyo odayaasha dalkii maanta gacantiina ku jira magaanadiin yahay inaad ka badbaadisaan maalin walba in la ku fakayraasha ninka madaxweyne laga dhigayaa waa in la miisaana waa in ka fadla saara waa in backgroundkiisa la akhriyaa waa inuu noqdo nin hogaamin kara oo aan qabiil iyo in abtiyo in midna aan ku imaan aqoonta laga leeyahay waa inaan xaqraad la gelin midna waxaan ka hadalaa 3 nin oo ka fadhiisaareen nin baan noo soo baxay ninku waa Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxaan akhrinay raadkiisa aan dib u raacnay waxaan fiirinay ciidamada Soomaaliyeed oo dhisay oo maanta kuwii Soomaaliya hore u ahaan jirtay oo kale taa waalatiga xooga caalamka iyo darisyada dawladda dariska hore ma ka wada cabsaday wuxuu xoogaal bawtii dadkii Soomaaliyeed oo maxaabiista ah oo dibadaha jiray oo xirraa waa kuwa kan ugu soo daaday muqdishada kale loo dacwado meel walba loo maray oo u jeedaan hawadii Soomaaliya oo xirrayd oo diyaaradu Nairobi joogeen war martida ka dhulka yagina waa kan la furay wata ka shaqeynaysa airportka maalmaha soo socda waxa la gaarayaa in laga baxo baahi in laga baxo shaqaalkii dalka la soo saaraya ka baniyaashii caalamka oo dhan u tartamaysa adduunka dawladda ugu waaweynaba hadda markaan dhilina galaya oo wada baadi goobahaya oo in cid walba waxay keenay u sheedaan hubka iyo taangada iyo diyaaradaha waxa la soo qofaayo waa Mareykan waa Ruush waa Turki waa diray ku idmaayo Chinese waa ciidamadii oo dhan dhismo meesha marayo saaka dib inaan u noqonnaa dannooma ahan waxaan leeyahay oo mid u soo jeedinayaa dalkan saaka waxa u dan ah in dib loo doorto Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo gaarsiiyo xilligii baahida dalka iyo dadku ka bixi lahaayeen intaas waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed soo jeedinayaa waa dalka loo daneeyaan leeyahay odaygii dalkaanahay taasi waa